السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa maanta ka socda aqalka baarlamaanka Soomaaliyeed aniga aragtidayda ayaan qodob iyo laba raba inaan ka dhaho oo ku saabsan mooshinka laga keenay wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macalin Fiqi. wasiir Fiqi wuxuu ku jiraa dagaal, wuxuu difaacayaa dalka, waxa u socda doodo adag oo wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ishayaan xilliga kan oo marxaladaas lagu sugan yahay oo badeeni lagu haysto oo dagaalkaas iyo difaacaasi socdo. He is the right man for the job. qofkii xilligan dhaha ha laga qaada iyo xilka ha laga qaada iyo waxaan isleeyahay waa arrin ay Itoobiya ka faa'iidi karto, qalalaasahaasna lugba laga yaabo inay ku leedahay. xildhibaanada sharafta leh waxaan ku leeyahay haddaad rabtaan inaad arrin mooshin ka keentaan orda qaadka mooshin ka keena. Fiqi wadaniyadiisa iyo dhiiranaantiisa iyo qowlkiisa iyo ku dhiciisa waa lagu yaqaanaa. markuu raba geelaha iska qasho, hadduu raba 91 waa lagu noqonayaa hadhow markuu rag iska celinayo. laakiin there is no question nin wadani ah oo mayal adag oo waxa uu aaminsan yahay afka ka oran kara inuu yahay, waana right man for the job. xilligan waliba dagaal iyo difaac lagu jiro ninkii saxda ahaa oo wasaaradda arrimaha dibadda loo joogi lahaa weeye. tashuushka iyo hoodaadeeska Itoobiya loo samaynayo hala joojiyo, hana loo ogolaado wasiirka inuu shaqadiisa soo wato. cidda kaliya oo ka faa'iideysa qalalaasahan siyaasadeed ee wasaaradda arrimaha dibadda laga dhalinayana waa Itoobiya, hala ogaado. xildhibaanada waxaan leeyahay mar kale war wasiirku shaqo hayaaye haddaad ka keenaysaan wax mooshin orda kuwa qaadka ganacsada ka keena.